marka kelmadeyda waa soo koobaya si guud laba qodob aan rabaa inaan ku soo koobo tiknoolajiyada iyo khudbadda la ii soo magacaabay tabaarag dhanka tiknoolajiga si guud waa shirkad tiknoolajiyada ka shaqeysa xagee u socotaa waa hal qodob qodobka kalena globally ama si guud adduunyada tiknoolajigi xagee maanta u jeedaa labadaas qodob aan rabaa inaan ku soo koobo tabaarag waxaan u malayn xilligeennii 5 sano 6 sano 7 sano ka hor xawligan tiknoolajiyadu ku socota ay isku soconin wixii lagu shaqeey jiray maanta laguma shaqeeyo oo maxay ahaat haday noqon lahayd ama programming ama haday noqon lahayd hiigsiga guud ee tiknoolajiyada sanadii u dambeeyay shirkadda lafteeda waxba iska bedelay dhowr qodob oo la xiriira dhanka ay shirkaddu u socoto hadii aan guud galo 2025 bilowgiisii shirkaddu waxay soo bilowday in horta tiknoolajiyada lagu shaqeeyo la nidaamiyo grouping loo sameeyo tusaale wixii isleba la qaybeeyo database-yada qayb laga dhigay waxaan u malayn inay teamku la socdaan injineerada iyo howlwadeennada kale waxa qayb kale laga dhigay security-gii maalihii markii hore laga yaabo inay kala baahsanaayeen oo la isku keeno website-yadii ayagana qayb gooniya laga dhigay div-oba la soo kordhiyay ayaga laftooda qayb gooniya laga dhigay quality assurance hadda processing ku jira oo la process gareynayo in la nidaamiyo si guud marka tiknoolajiyada shirkaddu ay u socoto waxa weeyaan in hadba wixii ugu dambeeyay wax laga sameeyo wax laga isticmaalo jihada loo socdaa waa halkaas iyo waxa loo yaqaan segmentation-ka in waxaan u malayn 2020kii shirkaddu developer-radeedu 2 luuqadood 3 luuqadood 4 luuqadood wax lagu qoro oo la wadaago ayay ahaa jireen hadda waxaan la soo kordhiyay in la yiraahdo wixii isku shaqaaba oo shaqadoodu ay qaybta ay isleedahayba hal qayb oo gooniya hal laga dhigo si guud marka shirkaddu halkaas ayay waxa sidoo kale shirkaddu hadda u socotaa waxa loo yaqaan AI oo aan rajeynayno 2026 hadii uu dhamaado inuu si full ah u shaqeyn doono hadii ilaahay ma hadda pilot testing-kii iyo injineeradoodii iyo diyaarintoodii la wadaa adduunyaduna meesha ay u socoto waa halkaas oo AI-ga ayaa lead gareynaya iminka adduunyada sidoo kale waxa loo yaqaan smart city iyo green technology iyo waxa loo yaqaan climate change oo socdo oo climate technology waliba ayaa socda waxaan u maleeyaa wali xafiisyada warqado iyo wax badan daba socda korontadii si kala ayadii lafteeda marka saaka markaan soo soconay kulaylka wala dareemay qaybaan ka nahay anagoo technology-ga iyo xalana la ka rabaa inaan wax ka xalino kulaylkaas iyo waxa socda inaan qayb ka noqonaan la ka rabaa haday noqon lahayd climate technology inaan wax ka dabaqno haddii alla idmo maamulkii sarana wuu joogaa kulli arrintaas waa soo jeedinaynaa in shirarkeeda iyo meelaha looga hadlayo shirkaddu ay qayb ka ahaato haddii ilaahay idmo guud ahaan marka waxa loo yaqaan AI-ga iyo blockchain-ka iyo quantum-ka iyo smart city-ga iyo waxa loo yaqaan climate technology-ga halkaas loo socdaa oo haddii alla ku run yahay injineeradu software development-ga coding-ka oo hadda la qorayo waxaan markasta u jeedinaa inay AI-ga iyo dhankan waxyaabahan hadda aan ka sheekaynan inay daraasaadkooda iyo adduunyadaas ay la socdaan maxaa yeelay 2030 markii la gaaro haddii ilaahay sida qorshuhu yahay adduunyadan ka hadlayna kama hadlayna tabaarag sida qorshuhu yahay injineer caadi inuu code qoro oo uu program sameeyo waa laga gudbi doonaa waxa loo gudbi doonaa in gudoomiye hadduu u baahdo gudoomiye Maxamed Carab hadda khudbad jeedinaya hadduu u baahdo inuu khudbadiisa jeediyo macluumaadka shirkadda ku saabsan inuu AI-ga hadduu alla ku roon yahay inta application yar asagu macluumaadka u sheego application yar u sameeyo khudbadda waa halkaas ka jeediyo in steering engineer-ka dhihi lahaa system hebel report iga keen system hebel ii sameey halka uu dhihi lahaa inuu macluumaadka sidaa ku helo ayaa loo socdaa marka meel dhinac ka sii qar ka sii laalaada ay injineeradu intooda badan hadda ku shaqeeyaan waxyaabaha aan rabo inaan ku soo gunaanado waxa kamid ah new technology-ga iyo development-gaas loo socdo oo adduunyada u socoto ayaan injineerada u propose kareynaa inay ka qayb qaataan qaar badan oo kamid ah comfort zone-ka ku jiraan waxay aad ugu cudur daartaan inay adoption-ka iyo inay meelahaas haddii alla ku run yahay u guuraan waxay leeyihiin anaga waxaan iska aqaanaa react aan aqaanaa marka wax ka duwan react ma rabo inaan qoro
react waxa laga yaabaa 2030 inaad qortay in laga guuri doono marka arintaas waa inay si guud injineeradu ku baraarugsanaadaan adduunyaduna halkaas ay u guuraysaa haddii la idmo aadan guud ahaan ugu mahad celinayna injineeradu commitmentkooda iyo teknolojiyadda iyo dabcan sida ay ugu dulqaataan maxay ahaato isbeddelkaas qaar badan oo kamid ah kama hadlayna intii qaar badan oo kamid ah sida ugu dulqaataan aadan ugu mahad celinayna guud ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo injineerada gaar ahaanna tiimka u bareeray inay new technology wax ku develop gareeyaan si gaar ah ayaan iyagana ugu mahad celinaynaa oo iqtiraac sameeyaan wax cusub oo resource-gooda uu yar yahay markii aad wax ku sameynaysid wax fudud ma aha